السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايدين السلام ميل والبوات شوكتان وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كايمان شري معهد كالنبضة يبلشدة ولا لي البرنامج كمان توحن كسو قاضية يعني دباتة قبيالة كو هايسو ومدى الصوماليات oo qofku wax kale aanu arki karin oo sidoo u fikiro sidoo wax u qabanayo sidoo u dhaqmayo wax walba ay qabyaaladu goynayso oo ay mas'uul ka tahay inuu raaco waxaad ogtiin xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho iyo Soomaaliba inuu kala qaybiyay magaalada muqdisho waxa weeye qabiil baa loo kala baxay abgaalkii dhexdoodii baa qabiil u kala baxay qaar taageersan isaga iyo qaar diidan laakiin waxa la rabay arrimuhu markay saayihiin inay jiraan dad ka sareeya waxaas qabyaalada ka sareeya oo danta guud eegaya dad eegaya dadkaas waa dadka haldoorka u ah ummadda laakiin taas iyama muuqato waxayna igu abuurtay yani walwal iyo runtii xanuun iyo in Soomaaliya rajadeedu ay yartahay inay dawlad noqoto oo ismaamusho waxaan idin ka codsanaynaa marka hore barnaamijka inaad taageertaan like subscription ku samaysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin maalin dhaweyd waxaan arkay video uu fadhiyo ra'iisul wasaarihii hore Ali Maxamed Geedi waxa la yiri shirka waxa soo qaban qaabiyay beesha harti abgaal marka علي طبعا حسن وتاجرسية هساها شيء تاجر ديسة لما له هدو تاجره تدكو والوك الدوانان كان عرفتيها لبعتدو تامة لكن لبعتدو وحوية ماشو حلقة كرادين أيو سيدو دتك وكلا صار أيو سيدو وقد يجيو إنجا يجونا واشر وضيال إنجونا خير وضيال بيننا يعني قفك حس محنكور هذا علي محمد جدي مستويه سام هيركي سو كلا جاري وحي هيد إنه قبيل كسر ريو إنه دت كيس ودن كيس سجود وقدم قضو إنه أرادي مصلحة هذا سجود هرمر كذا إنه سجود قدانه سجود إنه الدفاع علي محمد جدي أنتو قبيل كيس عادي لها وحكاها بون السوق الصومالي وحكرت كذا هذا ويرادا ورسه waxaan u xalinaa waajib bayna saarane uu og yahay dhibaatada meesha taal inay balaaran tahay oo hadii qoloba meel istaagto aan wada hadal dhicin iyo xal aan la raadin inay meel xun ku dambeynayso way shaqada Soomaalida caynkaas marka dadkeeni muhiimka aha wax garadka aha aqoon-yahanka aha ee mas'uuliyinta maaragta siyaasadda haya ama soo qabtay markuu nin walba qabiilkiisa hoos galo qabiilkiisa aado waxa weeye maslaxadii guud ayaa dhumaysa la heli maayo cid Soomaali oo dhan marka ama u adeegta ama danaheeda ka fikirta ama si qarannimo ah u fikirta la heli maayo ama wax u raadisa mana jiraan adduunka ummado sida aynu u dhaqmayno kala u dhaqmayo wax walba la kala sarifayo wax walba lagu kala tagayo ummadaha waxa jira dad waxa ka sareeya ويراد ورونا أنا ومسرحات جود دونو وتاجنانو دد واحد شيء اسكت دد كأنه كرر عيان دنت جود وحيابها هوس عن إيجن لكن إنك وإنك وعدك تاني إنك صباحان أنا ومتشران ما أرانا يو لكن هدي شران دد الكود وما بموقده ميا دركت عضو واحد ما أنت وكل الدبقات واحد كل أردي وعين كاس واحد أقول له وضياش رقنك odayaasha dhaqanka oo garaad jaamac maalin dhaxaas oo muqdisho u ka hadlayay oo yiri odayaashii muqdisho waa noo imaan waayeen waa diideen inay malaha dad baa weydiiyay aanu marinay kuwa mucaaradku inay u badan yihiin bal isku day odayaashu xalliya garaad jaamacna wuxuu yiri odayaashii muqdisho ayaa noo imaan waayay xogaa dhaliil buu soo jeediyay anigu waxaan ka jeclaa inuu yiraahdo arrintii hadda noo suura gali weyday والبابك وفرادة الباب كوي كلاك عي أو مقدشة إيانا وحد كهذا صاحبك كم تشيران أنا كان واشقد الصومالي ده موقت يعني أنا وحى إلى هبونا قرأت جامع حتى أنا الباب كم حيران
waxaan oran lahaa kulankii waa noo qabsoomi waayey duruufaa jira ba isu soo noqon doonaa caynkaasay noqon doontaa yani afgobaadsi isaga tag xiriirkana wad oo hoos ka wada waxaad tiraahdaa waryaaya maxaa dhacay kuwii kalena waxay ahayd intay ka daba qaadanayaan inay at least yiraahdaan waa ka xunahay shirki waa qabsoomi waayey laakiin waynu qaban doonaa ama waxay doontaa ha ku cudur daarteen laakiin inay si mas'uuliyadu ku jirto laakiin marka dadkeena ugu sareeya ay fagaaraha isku qabsadaan ama siyaasiyiin ha noqdeen ama dhaqanka ha noqdeen ama culimada ha noqdeen ummadaas waxay noqonaysaa ummad baaba'day halkaan uma jeedo anigu inaan ama garaad jaamac eedeeyo ama odayaashii kaloo ka daba hadlay oo difaacayay odayaasha muqdisho ma aha taas ujeedadaydu ma aha laakiin waxaan rabaa in marar badan sidaynu wax u maamulayno iyo xigmadeenu runtii ay ka hooseyso sida la rabo in arrimaha loo dhaqaajiyo waxaana tusaale u ah tan cali maxamed geedi oo qabiilkiisii hoos tagay oo yiri qabiilkaygii oo hadla warmaad Soomaaliya oo dhan hadla tiraahdo isu keentid haddaad adigu doorka qaadan weydo cali maxamed geedi oo yaa qaadanaya yaad ka filaysaa inay Soomaali danaheeda ka shaqeeyaan war ilaa in masiibada la arkay war ummadan war xagee u soconaa war wax walba ma waxaynu ka dhigma meesha ugu hooseysa inuu isla tagaynaa meesha ugu hooseysa wax ka sariiganaya wax meel sare eegaya wax ma garanaysaa in si mas'uuliyadu ku jirto u dhaqmaya ma jiraan qof walba meesha ugu hooseysa ku dhufanaya oo qofka suuqa jooga sida u fikiro ama u dhaqmo buu qof walba raba inuu u dhaqmo qabiilka aado kala firdinta ummadda aado kala qaybinta aado hadalka qalabsan ku hadlo yani ayaan daro waa baaba waxaad arkaysaa culimadii oo is haysata sidaas oo kale culimadu marmar daliil soo jeedi laakiin ma inaad maalin walba afku ku haysa maaha waa dhibaato inaad maalin walba is haysataan maaha waa dhibaato marka dadka Soomaaliyeed anigu walaalayaal runtii waxa weeye waxa ii muuqda in aynu waxaan wax ka bedelo wax looga bedeli karaana waxa weeye adiga qofka caadiga oo waxaanu saameynayso dawlad la'aanta ku saameynayso oo magaranaysa nabadgelyo xumadu ku saameynayso oo caruurtaadii aanay mustaqbal haysan isku day inaad kacdaan inaad hadashaan aad tiraadaan war waxaan kuma jiri karo aad siyaasiyiinta dareensiisaan inay xal la yimaadaan way dad yoga adduunku saasay sameeyaan waxay dalbadaan nolol bay dalbadaan xukun wanaagsan bay dalbadaan ammaan bay dalbadaan laakiin inagu ma kala jecelin haddaan saxariirno iyo haddaan barwaaqowno iyo haddaan dhibaatoonno iyo haddaan qaxno iyo haddaan degno waxaad moodaa wax walba waska caadi waa furanta waan rajaynayaa inay dadka Soomaaliyeed runtii baraarug galo oo caqli galo oo ay yiraahdaan war waxaan intaa ka badan kuma jiri karo uma dul qaadan karo Cabdi Maxamuud Qalla barnaamijkeedin ka imaan jiray macadka nabadda bulshada sida ay nabad galiya walaalayaal